السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. cashirkan waa cashir hordhac ah oo aan ku baran doono waxa loo yaqaana upper limb anatomy ama anatomiga oo gacanta. Anatomiga oo gacanta iyo anatomy kale oo aan soo gelin doono oo aan kaga hadli doono lugta waa anatomy aad iyo aad complex u ah, sababtoo ah waxaa ku jira muruqyo aad iyo aad u tiro badan iyo jointyo aad u tiro badan oo aad iyo aad ay u adag tahay sida loo sharaxo haddii oo macnaha meel sawir sida 2D macnaha sawir oo kale lagu sharxayo. Habka ugu fiican oo lagu baran karo waxay tahay qaab video ah oo dissection lagu sameynayo ama qofka in oo meesha uu joogo wax uu ka baranayo dissection inuu sameeyo, sababtoo ah maadaama uu complex u yahay shaygaasna uu yahay wax oo 3D ah. That's why marka aan ka afeefoonaya inay adkaan doonto in oo 2D aan si fiican ama sida ugu fiican aan ku sharaxno, laakiin muhiimadeena taas ma ahan. Muhiimadeena waxay tahay cashirkan waxaan ku baranaynaa lafaha ku yaala ee gacanta iyo magacyada technology-ga ay leeyihiin oo technical-ka ah, laakiin cashirada soo socda waxaan xoog ku saari doonaa qaybta clinical-ka ah. Cashir waxaan soo gelin doonaa oo ku baran doono x-ray ama radiograph oo upper limb iyo jababka soo gaara ee gacanta noocyada ay kala yihiin sida loo garto. Cashiradaasoo muhiim ah iyo cashir aan isku dayi doono inaan ku barano neerfayaasha oo gacanta, iyo cashir aan isku dayi doono inaan ku barano xididada oo yimaada macnaa arteries iyo veins, labada qayb macnaa kuwa dhiigga keena iyo kuwa ka qaada ee dhiigga oo oxygen la'aanta ah ayaan ku baran doonaa. Marka cashirkan waa cashir yar oo hordhac ah, lafaha kaliya aan magacood ku sheegi doonaa, waana wax qofku xifdin karo oo aad iyo aad muhiim u tahay inuu xifdiyo maskaxda kor uu ka hayo magacyada oo lafahaas. Haddii kale way ku adkaanaysa hadhow markii aan sharxayno laftaas meesha ay maraysa neerfahaas meesha uu marayo waxa ay tahay. Marka qaabka ugu fiican ee anatomy lagu baran karo waxay tahay qofkii dissection inuu sameeyo. Dissection oo ah in oo muxuu ahaa haddii qof medical student uu yahay in jaamacadii uu dhiganayo in oo qof dhintay oo meyd ah oo macnaha uu ku barto. Waa habka ugu fiican oo anatomy uu ku arki karo laf walba meeshay ku jirto iyo qaabka ay iskugu dhigayaan labada laf iyo jointiga iyo inta muruq iyo inta seeta u dhaxaysa uu ku baran karo. Haddii taas aysan jirin inuu ku barto models waxa waaye waxyaalahan plasticada oo ah sida oo la soo sameeyay modelka oo gacmaha ama vertebrae-ga ahaado ama lugta ahaato oo lagu baran karo modelayaasha. Haddii modelkaas marka lasoo dhaafo YouTube waxaa ka buuxa fiidiyaal aad iyo aad u badan oo dissection oo ah qof bini aadam oo lagu baranayo qaabka uu samaysan yahay bini aadamka, oo dissection lagu sameynayo oo real ah. Waxaa loo yaqaanaa cadaveric dissection. Marka dissectionkaas oo noqonayo macnaha nooc walba ah bini aadamka, gacanta, lugta, maskaxda, meel walba aad ka fiirsan kartid. Waxaa u baahan tahay oo kaliya in oo emailkaas sign in aad ku dhahday, sababtoo ah badankood waxaa ku xiran haddii aadan sign in ahayn inaysan ku ogolaaneyn inaad daawatid, sababtoo ah ciyaalka ayaa loo diidan yahay inay daawadaan. Sidoo kale YouTube waxaa ka helaysaa qaliimo tiro badan oo la sameynayo, qaliin caloosha ah, qaliin maskaxda ah, qaliin gacanta ah, qaliin oo lugta ah, meel walba oo bini aadam ka mid ah qaliin lagu sameynayo waxaa ka heli kartaa YouTube oo ku baran kartid jointyaasha, muruqyada, xididada waaweyn meeshay maraan oo aad iyo aad macnaha dunida cali u fududeeyay. Sidoo kale waxaa jira serieskan oo aad iyo aad u qiimo badan oo loo yaqaan macnaha Ackland's anatomy videos. Ackland waa Robert B. Ackland, wuxuu ahaa dhakhtar oo British ah oo waa geeriyooday sanooyin dhow ayuu geeriyooday. Video wuxuu duubay aad iyo aad u fiican oo anatomy oo ka fiican weli ma arkin. Ackland anatomy videos haddaad daawan kartid 5 volume waaye, macnaha 5 cajal oo cajal walba uu kaga hadlayo qayb ka mid ah jirka bini aadamka ah. Hal waxaa jira oo head and neck, mid waxaa jira oo internal organ sida thorax iyo abdomenka, mid oo uu kaga hadlayo upper limb iyo lower limb. Haddii Ackland ah heshid videogiisa waxaan u maleynayaa haddii YouTube aad ku qortid copyright dartiis marar badan ayaa laga saaray, laakiin dadka qaar still way soo geliyaan. Facebookna way soo geliyaan Facebook videos. Haddaad ku qortid Ackland anatomy waa ka heli kartaa. Waana aad iyo aad u fiican haddaad daawatid oo aad fahamtid. Waa dad bini aadam oo dissection lagu sameynayo, laakiin oo waqti badan la geliyay si wax walba macnaha exaggeration loogu sameeyo oo loo buunbuuniyo si loo fahmo macnaha iyo meesha ay ku kala jiraan xubin walbo, seet walbo, macnaha nerve walba meesha uu ku jiro. Sidoo kale anatomigan oo textbookan oo Nature aad iyo aad ayuu u fiican yahay oo detail tiro badan ayuu ku siinayaa. Sidoo kale Grace, sidoo kale waxaa jira Nature oo flashcard ah iyo Grace oo flashcard ah. Flashcard waxaa waaye page yar oo ku qoran yahay sawirkii
oo kadib lagu weydiinayo wax number walba uu taagan yahay taasoo marka xusuustaada oo zaadinaysa soo marka saan afeefada hore ku bilaabay anatomy ma lagu baran karo macnaha video aad daawatay oo kan oo kale ah haddii anatomy aad rabtid inaad baratid waa inaa u laabataa waxyaalahaas aan soo sheegnay oo aad iyo aad ugu muhiimsan yihiin inaad fahamtid muruq walba meesha ku jira sababtoo ah anatomy waa wax visual ah aragti u baahan qofka inuu arko haddii maanta o dhan lagaaga sheekeeyo gacantaada oo kale elbowgaaga jointskiisa saas waaye oo sawir lagu tuso oo 2D way adkaanaysaa laakiin haddii hal mar aa aragtid video oo dissection qof binaadam lagu samaynayo labada joint isku galaan mar dambe iloobaysid oo aad iyo aad u fudud yahay soo marka cashirka waxaan ku bilaabaynaa ereyada technicalka ah ee la isticmaalo sababtoo ah dadka caadiga markay hadda isticmaalaan gacanta hal shay ayaa laga wadaa macnaa inta kasoo bilow ilaa inta waxaa loo isticmaalaa gacanta laakiin luqadda englishka technicalka ah soomaali kama hadlaayo luqadda englishka ah gaar ahaan markay timaado cilmiga anatomiga wuxuu leeyahay definition oo precise ah qaybtan hore oo kasoo bilaabata macnaa shoulderkan ilaa meeshan oo elbowga ah waxaa loo yaqaanaa arm macnaa gacanta waxaan armka u yaqaanaan intaan oo kale ayaa loo yaqaanaa intaan waxaa loo yaqaanaa fore arm meeshan waxaa waaye wrist qaybtan waxaa loo yaqaanaa hand soo marka hand qaybtan oo kaliya ayaa loo yaqaanaa hand meeshan oo lafaha ay ku jiraan laf yar yar oo aan baran doono waxaa loo yaqaanaa wrist ama wrist meeshan waxaa waaye forearm meeshan waa arm marka waa inaad barataa haddaa isticmaalaysid technology oo precise waa inaad isticmaashaa oo haddii arm aad dhahdid qofka oo ku dhageysanayo oo dhakhtar ah wuxuu macnaa dhegtiisa ay tahay inaad meeshan ka sheekeynaysid gacantoona dhan ma ah so marka technologygaas aad iyo aad muhiim u yahay marka gacantii marka waxaa loo kala qaybiyaa dhowr qayb qaybtan oo macnaa meeshan oo jointi uu ku yaalo oo waxaa loo yaqaanaa macnaa shoulder joint inta arm saan soo sharaxnay qaybtan waxaa waaye arm macnaa waxaan ka hadlaynaa luqadda oo technicalka ah meeshan halahan waxaa waaye forearm meeshan waxaa waaye jointiga oo elbowga ah macnaa meesha laba laf iska galanaya waxaa loo yaqaanaa joint intan waxaa waaye shoulder joint arm forearm meeshan waxaa waaye wrist kan waxaa waaye hand ama gacantii sidoo kale kan waa anagoo gadaal kasoo fiirinay o kale kan waxaa waaye qaybta hore haddii qof hortaada u joogo oo kale kasoo fiirinayo gacantiisa ayaa meeshan ku arkaynaa kan waxaa waaye qofkii oo gadaal aan kasoo fiirinayno sidoo kale inta waxaa waaye arm inta waxaa waaye forearm meeshan waxaa waaye wrist meeshan waxaa waaye hand waxaa malaynayaa inaad si fiican u fahamteen luqadaas technologyga oo precise-ka ah oo aad aad ku saacidinaysa in oo aad ku hadashid luqad oo professional ah sidoo kale marka lafa waxaa jira isku xira jirka intiisa kale iyo garabka marka lafahaas isku xira waxaa loo yaqaanaa laftan oo loo yaqaana clavicalka laftan waxaa loo yaqaanaa clavicle iyo laftan loo yaqaana scapula laftan oo gadaal meeshan ku xiran waxaa loo yaqaana scapula laftan scapulaha marka iyo clavicalka macnaa articulation ay isku sameeyaan oo isku dhagaan kadibna clavicalka wuxuu isagana articulation ku sameeyaa ama la xiriirsamaa laftan oo dhexda ku taala jirka oo sternumka ah waana halka meel keliya oo garabka macnaha waxaa loo yaqaanaa shoulder girdle uu kaga xirmo axial skeleton ama skeletonka macnaa meesha laftan oo jirka dhan macnaha dhexdiisa ku taala waxaa kaliya halka meel iskaga xirmaan oo kaliya ayaa meeshan ah marka oo loo yaqaano sternoclavicular joint intaan oo kala marka oo clavicalka ah jirka waxaa ku haya muruqyo waaweyn oo ku celiya in aysan gadaal aadin hor aadin hoos aadin oo meeshan ku haya marka kuwa qaar kor ayay ka yimaadaan kuwa qaar inta ay ka yimaadaan laftan clavicalka marka iyo scapulaha waa laf aad iyo aad iyo aad marka muhiim ay u tahay force transmission waxaa loo yaqaana macnaa waxyaalaha forciga ah oo ku dhaca gacanta oo kale inuu u gudbiyo qaybtan jirka oo axial skeletonka ah soo marka laftan oo clavicalka waa laf aad iyo aad u nugul inay jabto badanaa sababtoo ah waa laf arkeyno oo jilcan macnaa meeshan dhexe ay ku jilcan tahay haddii qofka uu dhaco meeshan oo kale zaid pressure weyn ayaa fulaya oo force badan ayaa meeshan ku dhacaya forceaas wuxuu keenayaa marka inuusan awoodi karin kulligii inuu u wada gudbiyo jirka intiisa kale taas waxay keenaysaa marka inta qofka inuu ka jabo meesha ugu badan oo dadka ay ka jabaan ayaa meeshan ah soo marka lafta marka clavicle ayaa lahaa soo sheegtay tanna waxaa waaye scapula haddaan fiirin waxaa waaye laf aad iyo aad complex oo asan arkayn already meelo badan ayay leedahay
qaybtan gaduudka ah waxaa loo yaqaanaa macnaha hor usoo jeeda coracoid process sida oo suulka oo kale waaye. meeshan ka hooseys waxaa loo yaqaanaa glenoid fossa. glenoid fossa waxaa waaye meesha oo laftaan oo humerus macnaa laftaan oo aamka ku taala ay waxaa loo yaqaanaa humerus. laftaasi marka waxay dhex gashaa glenoid fossa. meeshan glenoid fossa waaye. glenoid fossa dhexdiis marka waxaa ku yaala carjow oo geeska ka xigta oo weyneysa inta oo labada laf ay isdhexgeli karaan, sababtoo ah labada laf saa arkeyno god badan ma laha oo lafta si fiican ay u dhex gasho. soo marka carjawdaas ku taala oo zaa'idisa godkaas waxaa loo yaqaanaa glenoid labrum. sidoo kale waxaa loo kala qeybiya macnaa inferior angle. qaybtan hoose scapulumka waxaa loo yaqaanaa inferior angle. qaybtan kale waxaa loo yaqaanaa superior angle. qaybtan waxaa loo yaqaanaa lateral border. inta waxaa loo yaqaanaa medial border. meeshaan aan arkeyno waxaa loo yaqaanaa acromium. acromiumka waxaa waaye meesha oo clavicalka iyo acromiumka ay ku kulmaan jointigaas waxaa loo yaqaanaa asan acromio clavicular joint. waa meeshaan acromiumka. acromiumka wuxuu kasoo baxaa isagan spine macnaa laf oo kasoo taagan muxuu ahaa scapulaha gadaashiisa laf kasoo taagan korkiisa ayuu ku dhamaadaa macnaa acromiumka. saan arkeyna marka waa laf soo baxaysa kor usoo taagan kadibna korkaas aadaysa waxayna marka oo articulation la sameynaysaa clavicalka. hoostiisana waxaa ku yaala marka glenoid fossa oo ah meeshay ku kulmaan muxuu ahaa humeruska oo kan ah iyo scapula jointigaas ayaa loo yaqaanaa markaas. haddii marka oo x-ray aan ku fiirino waxaa arkaynaa waxay hadda aan soo sheegnay oo kale. inta waxaa arkaynaa medial border oo scapulaha ah. inta waxaa arkaynaa inferior border oo scapulaha ah. inta waxaa arkaynaa lateral border macnaa xadka medial border waxaa ka wadnaa qaybta oo xadka macnaha oo xigta qaybta oo dhexe oo jirka ah. lateral border waxaa waaye qaybta soo xigta macnaa garabka lateral macnaa geeska. waxaa arkaynaa angle-ka oo hoose. meeshan waxaa arkaynaa inferior angle ayaan ku arkaynaa. kan waxaa waaye coracoid process macnaa geedkii suulka soo taagnaa oo kale. inta waxaa waaye clavicalkii. inta waxaa waaye acromion clavicular joint macnaa clavicalka iyo acromionka meesha ay joint ay ku sameeyaan. kan waxaa waaye acromionka. intasaan arkayna waxaa waaye glenoid fossa. inta waxaa waaye madaxa oo humeruska. inta waxaa waaye macnaa waxaa loo yaqaanaa anatomical neck macnaa madaxa ama qoorta oo anatomiga ah humeruska macnaa laftaan humeruska loo yaqaano. inta waxaa ku yaala marka laba lafo oo soo kuukusan oo soo taagan oo loo yaqaano greater tubercle iyo lesser tubercle, kuwaas oo ah laba meel oo raf ah oo lafa soo taagan oo muruqyo ay dhex galaan. meeshan waxaa loo yaqaanaa surgical neck of the humerus. surgical neck of the humerus waxaa waaye humeruska badanaa meesha uu ka jabo ayaa waxaa loo yaqaanaa surgical neck. inta waxaa waaye anatomical neck macnaa qoorta oo anatomiga ah oo uu samaysan yahay laakiin badanaa meesha uu ka jabo oo dadka u baahnaan operation lagu sameeyo oo la kabo ayaa waxaa loo yaqaanaa surgical neck of the humerus. kana waxaa waaye humeruska. soo marka muruqyo badan ayaa ku yaala lafta oo hor gadaal geesaha u dhaqaajiya. lafahaas murqahaas marka oo tirada badan waxaan cashir kale aan ku baran doona aan ku sharxayno jointiyaasha. soo marka saa aragtay laftaan oo gacanta macnaa aamka meesha ay ku sameynayso articulationka ama ay ku kulmaan labadan laf waa joint oo aad iyo aad macnaa ay u badan tahay inta meel ay u dhaqaaqi karto hor gadaal gees ilaa 180 degree ee qofka gacantiisa kor u qaadi karaa. waxaa saacidan waxay tahay marka laftaas awood u leh in oo iyo macnaa lafta humerus kaligiisa ma ahe scapulaha inay kor u dhaqaaqaan oo wareegsadaan oo gacantii kor ay u dhaqaaqdo. muruqyaha aad u tiro badan ayaa ku yaala oo controlaya marka dhaqaaqyaalkaas movementyaalkaas. muruqyaalkan tirada badan marka maray magacadood inaan tiriyo haddaa interest ku tahay oo keliya ayaan meeshaan usoo koobnay oo summary ahaan oo ku saacidinaya in oo ku baratid hadda muruqyaasha oo flexion sameynaya oo kale, muruqyaasha oo extension sameynaya, muruqyaasha sameynaya abduction, muruqyaasha sameynaya adduction iyo muruqyaasha sameynaya internal rotation external rotation. waa muruqyo magacood infraspinatus, teres minor, teres major, latissimus dorsi, pectoralis major. cashir oo kan ku xiga oon ku baran doono jointiska ama meesha labada naf iskaga yimaadaan ayaan ku sharxi doonaa muruqyaalkaas meeshay kasoo baxaan qaabka oo jointiga ay u dhaqaajiyaan insha allah. soo marka laftan humeruska saan arkayna waa laf oo aad iyo aad complex u ah. saan hor usoo sharxin waxay leedahay laba macnaa qoor kan loo yaqaan macnaa anatomical neck iyo surgical neck. surgical neckgan marka meesha badanaa ay ka jabto humeruska waxaa ku yaala nerve oo saas uu soo wareegsan oo loo yaqaan axillary nerve oo halis ugu jira haddii oo meeshan qofka jab ay kasoo gaarto oo qofka uu dhaco ama wax loogu dhufto
oo dhaawac soo gaari karo. sidoo kale waxaa jira laba neerf kale oo ayagana daran macnaa oo u nugul inay jabaan. mid waxaa waaye radial nerve. radial nerve wuxuu ka yimaadaa dhankan oo medialka ah, kadib gadaal ayuu kasoo wareegsadaa macnaa meeshan waxaa waa anigoo gadaal ka fiirinayna, gadaashan ayuu kasoo wareegsadaa, kan waxaa kasoo qaadaa gadaal inuu soo maray kadibna hor ayuu soo aadaa. soo marka haddii lafta ay jabto oo qaybtan waxaa loo yaqaana macnaa qaybtan shaft ayaa loo yaqaanaa, qaybtan dhexe hadday jabto waxaa halis ku jira in uu jabo ama dhaawac soo gaaro radial nerve. radial nerve wuxuu kontroolaa qaybta dambe ee gacanta. sidoo kale muruq nerve kale ayaa jira oo loo yaqaano ulnar nerve oo mara qabto qaybtan oo dhexe ama qaybta medialka ah, asagana wuxuu halis ugu jira haddii qaybtan hoose ay jabto oo humerska ah, dhaawac inuu soo gaaro oo qofkii oo barelaata uu ka noqdo. soo arkayna marka laftan kore hadday jabto oo aamka ah oo humerska ah in meelo badan halis soo gaari karto. waxaana waxay hadda aan soo sheegnay, kan waxaa waaye lesser tubercle wuxuu soo xigaa qaybta hore ama anteriorka ah, kan waxaa waaye greater tubercle inta waxaa waaye meesha uu soo maraayo lafta oo lafta ayaan dhihina seedka ama tendonka oo loo yaqaana biceps ama bicipital groove ayaa loo yaqaana meeshaan oo u dhexaysa labada tubercle, ama waxaa loo yaqaana intertubercle groove oo isku mid ah ama sulcus. soo marka waa wixii hadda aan soo sharaxnay waxaan oo dhan marka anatomical neck, surgical neck. sidoo kale wuxuu leeyahay laba laf oo soo tataagan oo loo yaqaano medial epicondyle iyo lateral epicondyle, macnaa laba laf oo geesaha kasoo taagan waaye. sidoo kale wuxuu leeyahay meesha labada laf oo la gacanta oo macnaa forearmka labada laf ku yaala oo ulna iyo radiuska meesha articulation ay ku sameeyaan ama isku dhex galaan. marka qaybta oo dhex gasha ulnaha waxaa loo yaqaanaa trochlea, qaybta oo articulation la samaysa radiuskana waxaa loo yaqaanaa capitulum. waa magacyo anatomy ah oo wax weyn oo usan ku jirin oo explanation ah oo qofka ay tahay inuu xifdiyo oo keliya meesha ay isdhex galaan iyo waxa ay yihiin. haddii gadaal aan fiirin waxaan arkaynaa laftan hoose kasoo taagan ee radiuska, kan waxaa waaye radiuska. laftan gadaal kasoo taagan waxaa loo yaqaana asan alecrinone oo qofka gacantiisa hadduu taabto elbowga markuu isku laabo uu ku arki karo alecrinonka. intan waxaa waaye radial head oo aan ku arki karno muxuu ahaa oo soo kuusan. soo saa hor u sheegnay cashirkan aan ku bilownay afeefadiisa hore aad iyo aad ay u adag tahay waxyaalahaas aan tirinayno magaca laga sheegay iyo sawirkan oo 2D aad ku aragtay in aad ku fahamtid oo macno weyn ay ku samayso waxa uu yahay. u laabo video gaar ahaan Ackland ama any macnaa oo dissection sameynayo oo YouTube ku jira, ama haddii aad samayn kartid dissection waxaan wuxuu kugu noqonayaa wax oo fudud aad iyo aad u fudud oo aad ku baran kartid. haddii marka aan fiirin x-ray islaftii waaye inta waxaan arkaynaa marka humerska meeshan kore waxaana laf oo round ah waaye, laakiin markii hoose imaato flat ayay noqonaysaa. waxay hadda aan soo sheegnay aan arkaynaa meesha ku dhammaanayo muxuu ahaa laftan waxaa waaye radiuska oo arkayno. meeshan waxaa waaye head of the radius, meeshan waxaa waaye neck of the radius, radial tuberosity ayaa loo yaqaana meeshan. laftan waxaa waaye laftan ulna, inta waxaan arkaynaa laftan kor kasoo taagan ulnaha oo loo yaqaano chronoid process. inta waxaan arkaynaa muxuu ahaa meesha ay dhex galaan ama articulation ay ku sameeyaan radiuska iyo humerska oo loo yaqaano capitulum. sidoo kale waxaan arkaynaa meeshan oo ay ku sameeyaan articulationka laftan oo ulnaha loo yaqaano iyo humerska oo loo yaqaano asagana trochlea notch ayuu dhex galaa, iyo trochlea oo ah macnaa qaybta ay ku dhammaato humerska. marka labadan laf oo aan soo sheegnay in oo ah forearmka ay yihiin, forearmka waa qaybta hoose waxa waaye radiuska meesha hore ayuu ka kuusan yahay, qaybta hore oo gacantaada hoose oo ristiga ah ayuu u weyn yahay. ulnahana waxaa waaye kaas cagsigiisa meeshan ayuu u weyn yahay, wuxuu u yaryahay meeshan oo ristiga markuu imaado. kan marka waxaa waaye geeska xiga radius, kan oo jirka dhankiisa xiga medialka xiga waxaa loo yaqaanaa ulna. labadood waxaa u dhexeeya marka fibrocartilage ama harjo aad iyo aad xoog badan oo ilaalinaysa in ay kala foqaan. laftan radius marka waxay kaloo samayn kartaa inay ku dul wareegsato laftan oo ulnaha ah, macnaa saan ay u wareegsan kartaa sababtoo gacantaada oo markii oo kor gacanta u qaadaysid oo kale iyo markaa saas u wareejinaysid waxaa loo yaqaanaa supination iyo pronation. supination and pronation haddaa rabtid waxaa ku qori kartaa internetka oo ku arki kartid gaar ahaan YouTube-ka haddii aadan aqoon. markii radiuska inta uu yimaado wuxuu asagana la sameynayaa articulation ama isdhexgalayaan ama isku xirmayaan lafa ku yaala meeshan. lafa waxaa ku yaala 8 xaba ah, waa 8dan laf oo aad iyo aad muhiim u tahay qofka inuu barto uu xifdiyo sababtoo ah waa lafo badanaa ee qofka markuu jabo dhaawac uu soo gaaro
oo x-ray haddaa ku fiirisid ay muhiim tahay inaad kala garatid wax ay kala yihiin. sideedaas laf marka waxay ka kooban yihiin laba row ama laba saf. safka oo qaybkan oo proximalka ah iyo safkan oo distalka macnaa qaybta oo jirka soo xigta iyo qaybta sii fog ayaa waxaa loo yaqaanaa distal. qaybta jirka sii fog waxaa waaye distal, qaybtan jirka soo xigta waxaa loo yaqaanaa proximal. soo marka qaybtan proximalka ah waxaa ku jira afar laf, qaybtan dambena waxaa ku jira afar laf. sidoo kale meeshan haddii horor aan ka fiirina waaye meeshan waxaa waaye safkan afar laf, safkan waxaa waaye afar laf. waxaa loo yaqaana marka carbal bones. carbal bones waan inaa xifdisaa oo keliya, si kale aa ku baran kartid malaha. marka markii oo radiuska uu meeshan imaado laftan ugu horeysa oo articulationka uu la sameeyo waxaa loo yaqaanaa scaphoid, waana lafta badanaa jabta. dadka markii gacan gacan ay u dhacaan waa lafta jabta. waxayna aad iyo aad marka waxaala muhiimka tahay waxay tahay in dhiiga yimaada uu ka yimaado gadaal. maxaa dhiig oo hore ka yimaado dhiig ma keeno, qayb ka mid ah dhiiggeeda wuxuu ka yimaadaa gadaal. haddii ay jabto marka waxay halis ugu jirtaa in x-ray aan lagu arkin oo dhiiggiina macnaha uu jarmo oo uusan imaanin oo laftan ay dhimato. waa laf marka halis aad iyo aad u weyn geli karta haddii qofka ay ka jabto. waxaa loo yaqaana marka scaphoid. kan ku xiga waxaa loo yaqaanaa lunate. inta waxaa ku yaala laba laf oo isdul saaran, mid hoos taalo oo loo yaqaano triquetrum iyo mid dul saaran oo loo yaqaano pisiform. suulka asagana ama thumb waxaa asagana macnaha articulation uu sameeyaa safka oo kale oo sii fog macnaha distal row. asagana afartaas laf waxaa waaye trapezium, trapezoid, laftan oo capitateka loo yaqaano iyo kan oo hamate. hamate waxaa ku yaala marka geed oo hook. hook waxaa waaye geedkan oo lafta oo malaayga lagu soo qabto oo kale, ama kalluunka lagu soo qabto badda dadka oo macnaha kasoo kalluumaysta geedkaas ay ku qabtaan hook. hook of the hamate meeshan wuxuu ku sameynayaa marka inay border sameeyaan oo sida tunnel oo kale ah. tunnelkan waxaa dulmaraya carjawyaal iyo muruqyo badan oo controlaya dhaqdhaqaaq oo gacanta. sidoo kale waxaa dhex maraya nerve aad iyo aad u muhiim u ah oo loo yaqaano median nerve oo controla dhaqdhaqaaqa oo suulkaaga iyo gacantan oo aan ku baran doono cashir kale oo nerveyaasha gacanta aan ku barneen hadda aanan rabin inuu nala galo. soo marka saan sharaxnay marka radiuska iyo alnaha waxay isku xirmaan lafahan sideedan laf oo ay tahay inaa xifdisid. kadib waxaa ku xiga shantan laf oo loo yaqaano metacarpal bones. macnaa metacarpal koowaad, kan labaad, kan saddexaad, kan afraad, kan shanaad, metacarpal bones. kadib waxaa ku xiga phalanges. kuwan waxaa waaye waxaa loo yaqaana proximal phalanges. kuwan macnaa faraha waaye. kan waxaa waaye middle phalanges, kaasna waxaa waaye distal phalanges. saan arkeyna marka suulka ma laha middle phalanges. macnaa suulka wuxuu leeyahay oo kale laba macnaha oo phalanges oo keliya, kan iyo kan. heerka kuwan farahan ay leeyihiin min saddex phalanges iyo mid kastana wuxuu leeyahay metacarpal. suulka metacarpal wuu leeyahay laakiin middle phalange ma laha. wuxuu leeyahay oo keliya proximal phalange macnaha laf soo xigta macnaa dhankan oo metacarpalka ah iyo midda ugu dambeysa oo distal phalange ah. kan waxa waaye asagoo oo cagsigiisa. soo video joojartid oo ku xifdin kartid lafahaas haddii aadan marka hore u xifdisanayn. kan waxa waa iska sawir oo diagram ah oo waxaad oo lagu buunbuuniyey oo kale. kuwan waxaa arkeynaa inay yihiin distal phalanges, kuwan waxaa arkeynaa inay yihiin middle phalanges. suulka ma laha middle phalange. waxaa arkeynaa laftan inay tahay metacarpal metacarpal bones aan dhihine proximal phalanges macnaa faraha oo proximalka ah. kan waxaa waaye metacarpal bones shantan xabo iyo sideedii laf oo aan soo sharaxnay inay yihiin carpal bones. meeshan waxaa waaye trapezium, trapezoid, capitate iyo hamate. meeshan waxaa arkeynaa hook of the hamate macnaa laftan oo soo taagan oo ku taala hamate. intan waxaa arkeynaa pisiform oo dul saaran triquetral macnaa laftan ay dul saaran tahay. inta waxaa arkeynaa lunate. intan waxaa arkeynaa scaphoid oo aan ku sheegnay laftii halista ku jirtay. haddii x-ray aan ku fiirin waxaa arkeynaa isla waxay hadda aan soo sheegnay exactly. inta waxaa arkeynaa distal phalanges. inta waxaa arkeynaa middle phalanges. suulka ma laha middle phalange. waxaa arkeynaa proximal phalange oo soo xigta jirka. inta waxaa arkeynaa metacarpal lafaha oo metacarpalka ah. intan waxaa arkeynaa carpal bones ama lafaha oo carpalka ah. inta waxaa waaye ulna, kana waxaa waaye radius. intan waxaa yaala marka sideedii laf saa arkeyno. inta waxaa waaye scaphoid, meeshan waxaa waaye lunate, kan waxaa waaye hoos yaala triquetral oo u dul saaran yahay pisiform,
meeshan waxaa waaye trapezium, trapezoid, capitate iyo hamate. sidoo kale inta waxaan si fiican ugu arki karnaa hook of the hamate, macnaha lafta kasoo taagan hamate.